ogaal waraysiga xaaladaha markaa jira xaqiiqii siday tahay xargaday ku taala xargaga online wafdigan uu hogaaminaya madaxweynaha Khatuma State maamulka dhawaan la dhisay ee soo gaaray maanta magaalada Muqdisho ayaa waxa ku soo dhaweeyay airportka magaalada Muqdisho mas'uuliyiin iyo xildhibaano ka tirsan dawladda kumeel gaarka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Khatuma State of Somalia ayaa markii uu ka soo degay gegida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa uu gacan qaaday mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada halkaasi ku soo dhaweynaysay intaasi kadib ayaa madaxweynaha waxa uu ka warbixiyay socdaalka ay ku soo gaareen magaalada Muqdisho oo ka socda dawladda federaalka Soomaaliya ismadayadii oo naga soo horeeyay intiina soo dhaweysay oo argoorka nagu soo dhaweysay oo mahadnaqaynaa waxaanu leenahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin mahad baan idin celinay annaga ujeedadeedu waxa weeye Khatumaanu nahay maamul dhashay baanu nahay waxaanu xamar u nimina waxa weeye dawladda federaalka markii magaranaysa maamul dhasho dawladda federaalka waa inuu yimaadaa waa inay wada hadlaan itraaf soo dhaweyn iyo wixii xuquuqa ay leeyihiin intaas laga wada hadlaa intaasaan u nimin aanu kala hadalno dawladda federaalka simadayadiina waa kuwa hareeraha iyaga fadhiyo waa naga soo horeeyeen arrintu sidaa weeye kooxan faahfaahin naga siisaa khilaaf siyaasadeed ee dhexdeeda socotaan Khatuma markii ay dhalatay ujeedadeeda ugu weyn waxa weeye nabad baanu ku baaqnay gobol baanu ku baaqnay wada hadal baanu ku baaqnay waayo xeerkayaga dhigaya in Soomaali weyn la doono inta aanu jaarka nahayna aanu kula noolaano nabad iyo wanaag booqashadiina misamal maalinta bay noogu jawaabeen walina waa nagu wadaan haddana waxay noqonaysaa xaqiiqdu sida ay tahay inay dadka ay marinayaan gawaarida oo maatada ah cadibayaan gardarrada cad dulqaadasho dambe waa dhamaatay haddii ayan ka bixin dalkana inta ay joogaan waxaanu Soomaali u sheegaynaa gardarrada iyada ah oo saasa inaanu ka dulqaadanayna aanu ka saarayno dalkayga si kastaba amuurtu aatee dhawaan ayay ahayd markii isimo iyo mas'uuliyiin ka socota maamulka Khatuma State ay soo gaareen magaalada Muqdisho kuwaasi oo kulamo gooni leh mas'uuliyiinta dawladda federaalka kumeel gaarka Soomaaliya tan iyo markii la dhisay maamulka Khatuma State gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa mas'uuliyiinta dawladda kumeel gaarka Soomaaliya waxay wadeen kulamo iyo waliba casuumaad ay u fidanayaan mas'uuliyiinta Khatuma State